Attacks on Palestinians in the occupied West Bank. Witnesses say dozens set on fire Palestinian homes and businesses in the towns of Fandak and 64 Palestinians, including children, in a raid on the city of Qalqilia. The arrests come a day after 90 Palestinian prisoners and 3 Israeli captives were released under the ceasefire deal that's halted 15 months of war. Israel's military chief, Lieutenant General Herzi Halevi, has resigned, taking responsibility for the failure to stop the October 7th Hamas terror attacks. Halevi also said Israel has not achieved all of its military goals in Gaza and it's failed in its mission to protect Israelis. runtii aad baad u mahadsantahay waan ku dhawahay barnaamijka runtii wixii ka dambeeyay in lagu dhawaaqay xabad joojinta kana dhaqan gashay Gaza waxaa la dareemayay culays weyn dhanka daanta galbeed iminka waxay u raqaansadeen dhanka daanta galbeed saacadihii ugu dambeeyay waxaa ka dhacay dagaal xooggan oo u dhaxeeyay ciidanka Hamas iyo sidoo kale shacabka doonaya inay ka xoroobaan gumeystaha dhanka Yahuuda ayaa weerar ay u magac dareen jidaarul xadiid micnihiisu yahay derbiga birta ah ayay markaa ku soo qaadeen dhanka daanta galbeed Hamasna waxay tiri diyaar ayaan u nahay ciidankeena heegan ayaan gelinaynaa dhalinyarada inta badan la xirxirayo la dilayo hal iska daayo saan Gaza u difaacanay ayaan u difaacanaynaa deegaanada daanta galbeed marka magaalada Jiniin tusaale markaan u soo qaadano halkaasi dagaal xooggan ayaa ku dhex maray ayaga iyo sidoo kale dhalinyarada oo taageersan Hamas 8 qofood ayaa leeyahay ay ku shahiideen ay dhinteen 30 kalena waa dhaawac marka wali xaaladdu way qasan tahay gumeystaha Israa'iilna ciidan badan ayay soo dhoobeen deegaanadaas iyadoona markaanu fiirino nidaamka Maxamuud Cabbaas halkaasi maamul loogu dhigay deegaanka la haysto waxa la leeyahay kama aysan hadlin kaliya waxa ay ka hadlaan oo ay dhibaan shacabka marka xaaladdu waa sidaas markaan soo aruurino wuxuu yahay qorshaha Israa'iil oo hadda ku aadan daanta galbeed qorshe weyn markaan fiirino waxay ku fashilantay Israa'iil saan ogsoonahay Gaza oo ujeedooyinkii ahdaafta ay doonayeen ma aysan xaqiijin kaliya fashal ayay la soo laabteen oo xitaa ay ku kaliftay saraakiisha iyo mas'uuliyiinta waaweyn inay qaarkood ay iscasilaan marka iminka waxay doonayaan oo cabsi weyn ka qabaan xanuunka ay dareemayaan marka aad cabsi kalena way dareemayaan oo mar haddii Hamas ay guuleysatay wax xaqiiq ah inay sii socon doonto marka sidaas ay ku kalifaysaa inay ku dhawaaqaan derbiga birtaan weerarkaasaan qaadi doon yacni markaan ku fashilanay Gaza dadka soo socdo awoodda leh Hamas ayaan ka hortagaynaa oo nama soo jiri karaan saasaan markaan u fahmay oo loo qaadan karaa waxaa jiray warar sheegaya in ay daanta galbeed Yahuud qaadan doonto iyagu deegaamaysan doonaan arrintaas maxaa ilaa hadda laga ogyahay runtii hore soo jiraan ayuu ahayd qorshahaasi damacaasi weyn oo qayb ayuu ka ahaa riyada ay ku riyoonayso Yahuuda halkaasi lagu deegaamayay inay qaadan doonaan laakiin hay'ashee waxaa u diidan Hamas ayaa u diidan oo iminka ay guuleysteen qorshihii weynaa ee duufaanul aqsa ay xaqiijiyeen Hamas aan isdhihi karnaa oo ahdaafta way gaareen hay'ashee laakiin gumeystaha Israa'iil ay gaari waayeen marka qorshahaasi wali way ku taagan yihiin Yahuuda inkastoo la dhimay awoodoodii waxa ay yihiinna la soo bandhigay oo la ceebeeyay oo la qaabiyay oo marka waxaan u golay waxay tahay in badan waxa la dhihi jiray Yahuuda laguma dhici karo waxay leedahay awood yani waa la bunbuunayay warxumo tashiil iyo ishaacaad inta badan adduunyadu marka waxaas oo dhan Hamas ayaa banaanka keentay qaadashada deegaanka ay qaadanaysana kaliya waa af dabcan in laga guuleystayna caalamka oo idil ayaa wada arkaya wada qiray marka qorshahan waxaan u maleyn doonaa inuu yahay qorshihii ay ku burburi lahayd Yahuuda oo magaca Yahuuda la iloobi doono maadaama iminka ay burburtay way soo burburi doontaa laakiin Hamas uma xoogana sidii ugu xooganayd Gaza ugu xoogan tahay daanta galbeed uma xoogana arrintaasi misleedahay awood bay u heli doonaan ay ciidanka iskaga caabiyaan Israa'iil dabcan markaanu fiirino kuma xirno yacni badnaashaha ciidanka iyo hubka la haysto kuma xirno haddii midaad ku xirnaan lahayd Hamas maalmo kuma qaadan lahayn gumeystaha Israa'iil oo soo afjar lahayn marka waxaanu fiirinaynaa awoodda qarsoon oo weyn ayaanu fiirin karnaa ayaga ayaa sheegaya oo qaarkood iscasilay gawaarida cuseebka ah iyo sidoo kale halka markaanu ka fiirino runtii ciidanka oo labiskooda cusub yahay waxaad moodaaba
in dagaal aan lagu qaadin, in waxba lagu tuurin Gaza. Ayaga ayaa qeyraya. Marka dabcan damacaasi way lahaan karaan Israa'iil, laakiin waxaa xusid mudan ficilka la imaan doonaan noocuu noqon doonaa. Waan arknay Gaza waxay ku garaaceen. Welina Gaza way nooshahay oo way soo jeedaa. Xamaasna awoodeedii iminka ayay kasii daran tahay sidii shalay. Marka dabcan waxaa la dhihi karaa Israa'iil way ku fashilantay. In badan dagaalo badan ayay qaaday oo carabtu way ku guuleysatay. Xitaa 70-meeyadii Masar oo iska caabin ay sameysay. Markii hore Masar ay guuleysatay, laakiin kadib waa laga guuleystay Masar. Laakiin taas ma socon doonto. Haddeertaan Xamaas ayaa runtii guuldarada iyo fashilka Yuhuudda soo bandhigtay. madaxweynaha Turkiga oo hadlayay wuxuu ka digayay in Israa'iil waxay daanta galbeed u weerartay ay tahay inay doonayso in xabad joojinta ay jebiso. Ma laga yaabaa inay doonayso inay tiraahdo annaga duulaan baan weli dagaal baan ku jirnaayo Xamaas weli wayna la dagaalamaysaa? Midaasi waa suurtagal. maxaa yeelay mandiqad markaan marsiyo dagaalka sidiisa waa kadis. Inta badan inay wax markaa qaadayso xamlo ama weerar qaadayso waa in runtii marsiya u soo martaa. Mandiqadan inta badan gobolkan muhiimka u ah dunida, gaar ahaan muslimiintu, dagaalka kama dhammaanayo. Inkastoo laakiin iminka hadda guusha dhinaca muslimiinta ay jirto, Israa'iil horta kama tanaasuli doonto ilaa ma la tirtiro, qaaradda laga tirtiro. Laakiin maanta Falastiin waxaa dhici lahayd in la iloobo qadiyadeedii oo Israa'iilna ay sii xoogaysato. taa laakiin waxaa u diiday dagaalka Duufaanul Aqsa u diiday. ceebta Israa'iil iyo awooddii ay lahayd ay ku faanaysay inay waxba ahayn in lala dagaalami karo. Duufaanul Aqsa laga faa'iidaystay dagaalkii 7 Oktoobar aan ogsoonin 2023 wacdaraha uu dhigay. dabcan marka Israa'iil waa laga guuleysan karaa. wax walba ay sheegtaan lama qaadan doono ay ila tahay xilligan la joogo. Xirsi Halafi wuu iscasilayaa, maxay tahay sababtu? wuxuu iska casilaya waxay tahay dabcan qorshihii ay dejisteen tan iyo dagaalka markay bilaaween ayay ku guuldareysteen. Israa'iil waxay doonaysay dhowr ahdaaf markaan fiirino. midda koowaad in Xamaas laga adkaado, awooddeeda la tirtiro. midda labaad in runtii Gaza guud ahaanba la burburiyo oo qariirada laga tirtiro. sidoo kale midda saddexaad waxay tahay maxaabiista gacanta Xamaas ku jirto in lasoo furto. saddexdiiba dabcan Israa'iil waa ku guuldareysatay, maysan dhabeynin oo ma hirgelin ahdaaftaasi, way fashilantay. Xamaasna way guuleystay, ahdaafteedii way xaqiijisay. midaasaa marka saraakiishaas sabab u ah in runtii iscasilaan. hore mas-uuliyiinta horena isku casileen oo wasiirka amnigaan ogeyn inuu iscasilay. marka arrimahaasaa sabab u ah inay iscasilaan. weli waxaa soo socdo saraakiil kale inay iscasili doonaan, maxaa yeele way fashilmeen, halkaas waxba ku maayaan. haddii marka saraakiil cusub la keeno, dagaalkii qasana uu dib u bilaabmo, Israa'iil maxaa ku dhici karaa? Israa'iil waxaa ku dhici karaa in runtii guuldaradii shalay ay soo hoyday inay mid ka darna ay soo hoy doonto. qofka runtii hadduu daraad orod xumaa, shalay socod xumaa, runtii maanta uu talxun yahay, xaqiiqda meesha ku dambeyn doono waa la ogyahay. markaanu fiirino Israa'iil runtii dadka istiraatiijiyada inta badan dhiga ama arrimaha falanqeeya waxay leeyihiin Israa'iil waxaa la gaaray xilliga ay burburi lahayd. oo hore u sheegay hogaamiyaha ugu weynaa oo hore u dhintay Axmed Yaasiin, uu yiri xitaa qaarkood buug laga qoray waxaa ka harsan 2 sano kaliya ka harsan. marka 2025 waxaa xaqiijiyay hadafkaasi Xamaas oo guud ahaan ay soo muuqatay caalamka. marka Israa'iil waxaa ku dhici doono in runtii la iloobo, in qaaradda ay ka bixi doonto. oo xitaa Xamaas iminka hadda maadaama kaliya hadda dagaalamayso, waxaa kusoo biiri doonaa kacdoon kale oo carabta ka dhaco oo ka madax bannaan xukuumadaha iminka jira ayaa runtii ku biiri doona dagaalka. Israa'iilna way jabi doontaa oo waa la burburin doonaa. waxaan ogsoonahay Mareykanku in danihiisa oo hadda kaliya ilaalsanayo oo hadda uu leeyahay kaliya Mareykan ayaa mudnaanta siinaya, ayaa kow ah. caalamka kale waan ka tagay. waayadii hore wuxuu ku fikri jiray hadba maslaxadda intay gaaraysa xuduudeeda gaaraysa. laakiin haddeertan waxa uu leeyahay xuduudaha Mareykan ay ilaalsanaya, sida aan markaa aan kala dhasan karo. Israa'iil marka garabkeedii laga bixi doonaa, hore u burburtay, inta dhimanna waa la sii burburin doonaa. hagaag daawadayaalkaasina wuxuu ahaa Siciid Cabdiqaadir Abuukar oo ila falanqeynayay waxyaabihii hadda ugu dambeeyey dhinaca Falastiin iyo weliba
duulaamadii ugu dambeeyay ee Israa'iil ay qaadaysay maalmahan shalay ilaa maanta. aad baa mahadsantahay.